السلام عليكم. 400 oo sano ka hor laga soo bilaabo waa kuwa meel walba jooga. Waxay noqotay usluubkooda gaarka ahi in mowduuc ay ka dhigtaan filimaanta Hollywoodku. Aamusnidu waa qaacidooyinkooda ugu waaweyn mid ka mid ah. Waxay ka kooban tahay maafiyadan wax ka badan 100,000 oo xubin. Waxayna ka jiraan xitaa meelo ka mid ah Istanbul, caasimadda Turkiga. 2011 waxay sheegtay xukuumaddii Obama inay gacanta ku dhigeen hantidii maafiyada Yakuza ee Amerika. Sidoo kale ay qabteen 61,000 oo maafiyada Yakuza ka mid ah guud ahaan caalamka intii lagu guda jiray howlgalladii lagu fulinayay maafiyadaas. Laakiin kadib waxaa caddaatay in aysan intaasi aad u saameyn, cagsigeeda ay dhaqdhaqaaqoogii sii xoojiyeen. Haddaba waa ayo dadkan ay jidhkooda u daboolay taatuugu, naftoodan u huraya madaxdooda sarsare xilliga dantu ku qasabto. Waxaan si dhib yar u dhihi karnaa ama ugu magacaabi karnaa Yakuza, maafiyada Jabaaniiska ah. Magaca Yakuza maaha magac maafiyada, laakiin waa magaca guud ee ka dhexeeya maafiya badan oo ku midoobay taqaaliid ay wadaagaan. Maafiyadani waa ururo dambiilayaal ah oo daahsoon. Waxay leedahay caadooyin iyo dhaqamo gaar ah, iyagoo aaminsan in ay yihiin jiritaanka samurai. Waxaa la aaminsan yahay in maanta ay jirto wax gaadhaya 100,000 oo xubin kuna baahsan daafaha dunida. Yakuza kuwa ugu sarreeya waa ururka lagu magacaabo Yamaguchi Gumi. Marka loo eego warbixinada booliska qaranka, ururka Yamaguchi Gumi waxay jiraan 80 sano iyo 850 urur oo iyaga hoos yimaada. Waxayna iyaga kulligood gaadhayaan wax dhan 39,000 oo xubin. aad hadda daawanaysid daawade waa casho sharaf loo qabtay madaxda sare ee maafiyada, waxaana ku jira hogaamiyaha farcanka 6aad Shinobu Sukatsa, hogaamiyaha maafiyada Yamaguchi Gumi. CIA-da Maraykanku waxay sheegtay in ninkani uu ka mid yahay 100 nin ee ugu halista badan guud ahaan caalamka. Ninkani waxa uu dhoofiyaa daroogada iyo jidhka dadka oo uu ka ganacsado dilka, dhaca iyo cagajuglaynta wax walba oo sharci aan ahayn. Waxaa mar gacanta lagu soo dhigay isagoo dil u geystay mid ka mid ah dad caanka ah Japan. Haddana wuxuu sii ballaadhinayaa imbraadoriyadda Yamaguchi Gumi. Koritaanka aan xadka lahayn ee maafiyadan ayaa ka dhigaysa mid qabashada dadkani aan dhib yarayn. Intii u dhaxaysay 1997 iyo 2005 maafiyada Yamaguchi Gumi ma lahayn hogaamiye sare oo magacaaban. Sidaa ay tahay, haddana saameyn kuma yeelan in ay sii ballaadhiyaan dhaqdhaqaaqooga. Wargeys ka soo baxa Maraykanka ee Fortune ayaa sheegay in dakhliga sanadlaha ah ee maafiyadan uu yahay hanti dhan ama gaadhaysa 80 bilyan oo dollar. Waxaas oo lacag ah badankoodu waxay ka soo galaan ficilada naxariis darrada ah iyo dhaca iyo cagajuglaynta. Haddii uu xubin ka mid ah si kas ah ugu gafo xubin kale, waxa ay ciqaabtiisu tahay in laga gooyo farta yar. Sidaasna waxay ka dhigan tahay in sidaas sharaftiisa ay ku sii jirto. Sharciga farta oo laga gooyo qofka waxay u noqonaysaa waqti hore, iyadoo lagu magacaabi jiray Yubitsoma. Waxaa sharciga loo bedelay daldalis ama in hantidiisa laga wareejiyo ama in meel lagu xidho inta cumrigiisa ka dhiman, kolba dembigiisu inta uu leegyahay. Sababta loo joojiyay faraha goyntooda waa in ay ku dagaalami jireen seefta waagii hore. Haddii faraha laga gooyana, macquul maaha in uu seef qaado xubinkaas, wuxuuna sidaa ku noqonayaa xubin bilaa faa'iido ah. Waxaan dhib yarayn ku biiridda maafiyadan, waxaana qasab ah in uu qofku yahay Jabaaniis hadduu rabo in uu ku biiro, sababtoo ah waa sababo la xidhiidha dhaqamadooda. Waxaa qasab ah in qofka ku biira maafiyadan uuna diidi karin amar walba oo la siiyo. Maafiyadan ku dhex jirkeedu waxay ka dhigan tahay in aad bani'aadanimada ka tagtid iskuna beddeshid robot gacanta lagu maamulo. Waxay kaalinta labaad kaga jirtaa xagga dhaqaalaha ururada ka jira caalamka, waxaana ka dhaqaalo badan oo keliya maafiyada Maraykanka ah ee Carvel. Maafiyada Yakuza waa maafiyada koowaad ee ugu hubka dhoofinta badan caalamka. Taatuuga daboolay jidhkooda waa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu yaqaano, iyagoo 100 sano ka hor u isticmaali jiray ciqaab ahaan. Taatuuga wuxuu ciqaab u ahaa tuugnimada yaryar iyo dambiyada yaryar qofka ku dhaca, iyadoo lagaga qori jiray ama lagaga sawiri jiray gacanta ama madaxa qofka falkaa geystay. Taatu walbana waxa uu u taagnaa macno iyo qiso gaar ah,
iyo in lagu kala garto qof walba iyo shaqada uu qabanayo maadaama ay tiradoodu xadka ka baxday. waxa ay boolisku gacanta ku soo dhigeen Shigehoru Shikai, madaxa ugu sarsareeya Yakuza, markuu fiidiyoo uu lahaa ku faafay social media Vietnam sawir uu lahaa ka qaaday qof kale taatuugiisu cajabiyay. taas ayaan idiin soo bandhigay maanta. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, waayo waxay noo tahay dhiirigelin. fideogana like saar, asxaabtaada la wadaag, commentiga noogu reeb wax fikir haddaad noo haysid. waad mahadsan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.